بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال وبرنامج كأني دين تيدونيدا حلقة دي سير لو يطبنات حلقة ده waxaan ku iftiimin doonaa nabadda iyo ahamiyadda ay leedahay iyo islaamka sidoo nabadda u arko dunida hadda aan ku noolnahay walaalayaal waxa ugu badan oo aadanuhu ay u hanqal taagaan oo ay raadiyaan oo ay baaraan waa nabadda waxyaabaha la isweydiiyaa waxa kamid ah goormuu adduunku xasili doonaa ama amaan heli doonaa ama nabad uu heli doonaa sidaan la socono hadda caalamka wuxuu ku jiraa xaalad kala guura wadankaad aragtidba ama waxaa ka taagan khilaafaad ama waxaa ka taagan dagaal meelo badan baa laga yaabaa inuu dagaalo uu ka dhaco ama looga baqsan yahay inuu dagaalo ka dhaco walidaalika aadanuhu nabad la-aan way adkaanaysaa inuu sii noolaado horumarna uu gaaro islaamku walaalayaal waxyaabihii uu la yimid oo caalamka uu kusoo kordhiyey baa waxaa ka mid ah ama ugu weynba nabadda kelmadda nabad carabiga waxaa lagu yidhaahdaa salaam ama asilmu waa siin iyo laam iyo miim isla kelmaddaas iyo faracyadeeda iyo mushtaqaadkeeda qur-aanka kariimka waxaa ku soo arooray ilaa 140 kelmadood iyo ka badan bay ku soo aroortay kelmadda salaam ama nabad meesha kelmadda dagaal ama xarbi qur-aanka uu ku soo arooray 4 meelood farqiga u dhexeeya marka waa garan karnaa nabad oo salaam ah oo 140 jeer qur-aanka ku soo noqnoqotay iyo kelmadda xarbi ama dagaal oo 4 jeer kaliya ku soo laalaabatay waa farqiga marka u dhexeeya islaamka aragtidiisa uu arko nabadda iyo dagaalka islaam laftiisa wuxuu yahay kelmad ka soo jeeda nabad waana in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo hogaansado ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada uu muslimiinta uu ku abaalmarinayo wuxuu ugu yeeray nabad allah wuxuu leeyahay wallahu yadcuu ilaa daari salaam jannada markii la tagana dadka muslimiinta ah waxay isku salaamayaan waa nabad allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa taxiyatuhum fiiha salaam markii dadka muuminiinta qiyaamaha ay tagaan waxay isku bariidinayaan isku salaamayaan waa nabad iyo assalaamu calaykum islaamku marka walaalayaal ahamiyad gooni ah wuxuu siiyey nabadda iyo nabadeynta suubanaha sallallahu alayhi wasallam markuu tagay Madiina al-Munawwara xadiidkii ugu horeeyay ama dadku uu kula hadlay ama uu kula khudbadeeyay wuxuu ahaa xadiidka saxiixa ahaa uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri afshu salaama war nabadda iyo salaamta iyo silmigaba faafiya oo dadka gaarsiiya oo dadka nabad ku dhaqa afshu salaama وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام يعني نبض فافية وصلاة فافية ذلك مساكين تا عنتصية قرابة حريرية هبين كينا تكذا مركي ذلك أي جيفان وحد قليسان سين نبض وحد قليسان جنة إلهي سبحانه وتعالى علماء ولا ليال وحي كان نقاشان إسلام كما وحا أصل نبض مس وحا أصل دقالك علماء marka ku kala aragti duwan laakiin sida saxda ah culimadan u badan yihiin waxa way in nabadu ay asal tahay ilaahna subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka sidaas ku cadeeyay Allah markuu yiri qul lil ladina aamanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah wa intii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu maka ku noolaa nabad qaata la yiri dami dhaaf qaata afis qaata tasaamuh qaata dadka iska cafiya waliba dadka aanan muuminiinta ahayn ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم way dhibaateeyeen reer Quraysh saxaabadiisii bay dhibaateeyeen markaas nabiga صلى الله عليه وسلم wuxuu ka codsaday saxaabadiisii inay aadaan wadankan al-Habasha loo yaqaano ama Ethiopia ilaa marka dambe nabiga صلى الله عليه وسلم saxaabadiisii ay u soo hijroodeen dhulka Madiina al-Munawwara intaas ugu maysan ahayn reer Quraysh way ka daba yimaadeen oo nabiga صلى الله عليه وسلم cunaqabateen bay ku qabteen oo way la dagaalameen markaas kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu amray dadka muuminiinta ah inay iska celiyaan iska difaacaan dadka ayaga ku xadgudbaya ama dulminaya Allah subhanahu wa ta'ala marka wuxuu yiri udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu kuwa la dagaalamaya muslimiinta oo muuminiinta oo la dulmiyay inay iska difaacaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala amray muuminiinta marka waa markii dulmi lagu sameeyay muuminiinta guryahoodii laga soo saaray xoolahoodii laga qaatay inay isdifaacaan buu Allah subhanahu wa ta'ala amray ولذلك ولا ليال مفاهيم إسلام كا أو ضدك خلط كفهمين أما سيدا خلط لو فسرتي
ama loo isticmaalo waxaa ka mid ah mafhuumka jihaadka ama dagaalka. ilaahi subxaanahu watacaala markuu mu'miniinta uu amray inay jihaatamaan oo ay dagaalamaan, wuxuu u amray inay iska difaacaan dulmiga lagu hayo, guryahooda laga saaray, iyo in la damaano qaado in dacwada islaamka dadka ay gaarto. laakiin ilaahi subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta ma uusan amrin inay dadka iskaga duulaan, ay wax qabsadaan ama ay dhacaan, marnaba ma uusan amrin. Allah subxaanahu watacaala wuxuu ugu mana sheegtay reer Quraysh alladii atcamahum min juucin wa aamanahum min khawf. marka amniga iyo nabadda iyo salaamka waa waxa ilaahi subxaanahu watacaala shariicadiisa ay aadanaha kusoo kordhisay. aadanaha waagi hore wuu islayn jiray, wuu isbaabi'in jiray, qabiilba qabiilku ka wan yahay buu dili jiray. nabiga sal alla alay slam markuu alla soo diray shariico wuxuu la yimid nabad ayadoo dhanba ka samaysan, nabad ay u tahay asal. xataa diinta islaamka waxay taqniinisay ama ay sharciyeysay waqtiga la dagaalamayo, sababaha loo dagaalamayo, qiyamka iyo akhlaaqiyaadka dagaalka. walidaalika nabiga sal ly slam markuu dagaal kasta aadayo wuxuu amri jiray saxaabadiisa inaysan geedo goonin, qof weyn aysan dilin, haweenka aysan dilin, ciyaalka aysan laynin, in dhiigga la ilaaliyo. culamada mu'arikhiinta ah markay ka sheekeynayaan nabiga sal allahu alayhi wasallam ghazawaadkiisa oo lagu qiyaasay ilaa iyo 25 dagaal ilaa iyo 28 dagaal, iyo intii ka dhimatay nabiga sal allahu alayhi wasallam saxaabadiisa iyo dadkii ka soo horjeeday oo muslimiinta ahayn intii ka dhimatay, waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin muslimiinta 262 qof. dadkii gaalada ahna waxaa ka dhintay 1,022 qof. marka la isku barbar dhigo dadkii ka qayb galayay dagaalka iyo intii dhimatay, adigu hal iyo bar meelahaas baa ka dhintay. marka loo fiiriyo dagaalada hadda mucaasirka sida dagaalka koobaad adduunka iyo dagaalka labaad adduunka, dagaalkii labada Kuuriya, kii Vietnam, kii Ciraaq ka dhacay, waxaasoo dagaalo ay kii Burundi, Rwanda iyo Sri Lanka, markaad fiirisid waxaad arkaysaa dadyow kale aan muslimiinta ahayn say dhiigga ugu maaragtay ugu tasarufayaan oo dhiigga loo daadinayo, iyo dagaalka cadawtinimada ka muuqata iyo nacaybka ka muuqda. nuclear hal mar lagu tuurayo dad badan oo maaragtay oo aan dagaalba kugula jirin oo magaalo degan, hal habeen ay dhimanayaan 200,000 300,000 oo qof. islaamku waxaa walaalayaal waa uu ka soo horjeedaa. wuxuu u arkaa dagaalka haddii laga maarmi waayo in sida ugu quruxda badan oo ugu dhaqanka wanaagsan oo ugu kooban dagaalka loo soo afjaro. sababaha marka aadanuhu walaalayaal ay isku dagaalamaan, dadka mu'arikhiinta ah waxay yiraahdaan waa dhowr sabab. waxa ugu horeeya natural resource-ga ama al-mawaarid at-tabiiciyya ama khayraadka adduunka oo ka kooban ama ka yar bilaadanka. aragtidaas aragti saxa ma ahan oo ilaahi subxaanahu wa ta'aala asagaa bilaadanka abuuray, asagaana kownkan abuuray, khayraadkan asagaa abuuray, wayna ka badan yihiin. laakiin aadaha mar walba waxaa ku jira jashac ama maaragtay baahi ama maaragtay laga qaataa xoolahaaga. waa la isku dirirayaa marka sida khayraadka loo kala qaadan lahaa. qodobka labaad waxaa weeye dhaqaalaha. sababaha labaad oo bilaadanku isku diriraan waa dhaqaalaha ama waa economiga wax loo yaqaan. hadda majalaadka cilmiga oo ugu dambeeya casriga waxay yiraahdaan dagaalkii labaad adduunka iyo kii koobaad adduunkaba waxaa ka dambeeyay sababooyin dhaqaale ah. shirkad Jarmalka ay leedahay oo daawada soo saarta baa ka dambaysa la leeyahay dagaalkaas inuu dhaco. si daawooyinka loo gato, daawooyinka suuq loogu helo, waa in dagaal la ridaa, dad badan ay dhaawacmaan, dad badan ay laadaan si daawada ay u socoto. hadda caalamka khilaafaadka taagan oo ka taagan dhinac walba markaa fiirisid, dagaalkan hadda China iyo Mareykanka u dhaxeeya ama Mareykan iyo Iran u dhaxeeya ama Iran iyo dawladaha kale maaragtay Carabta u dhaxeeya, kulli markaa isku soo duubtid waa asbaab iqtisaadiya ama sababo oo dhaqaale la xiriira weyn. asbaabta saddexaad waxaa la yiraahdaa waa sababo diini ah. in dad kala diin ah ama isku diin ah laakiin kala madaahiba ama kala taaifa ah ay isku dagaalaan diimo wax la xiriira, ayadana waa wax keeni kara oo dhici kara. markii hadda la fiiriyo mujtamac Soomaali oo kale ah, dad isku diina oo isku kalara oo isku luqad ah oo isku midab ah, ayagoo dhan lagu qiyaaso 15 milyan ilaa 18 milyan, dhulku aad uga weyn yahay. badda xeebta ugu dheer Afrika ay leeyihiin, tharwa xayawaaniya ama xoolo badan ay leeyihiin, laba wabi ay leeyihiin, dhul beereed aad u weyn ay leeyihiin, khayrka uu ka badan yahay, natural resource uusan ku yarayn, wax economiga aysan isku haynin, haddana dagaalamaya
oo isbaabiyey oo 30 sano dhiigooda u daadanayo sababaha keenaya maxaa kamid ah asbaabaha keenaya walaalayaal in dadka Soomaalida isdirraan waa ay badan yihiin anigu waxaan ku soo koobay midda koobaad jahli ama aqoon xumo naga haysata nabadda iyo ahamiyadda ay leedahay inaan nabad u baahannahay inaan nabad ku wada noolaano inaan isqadarino inaan is indha buuxino intaasba aqoonteena ma gaarsiisna haddaanu nahay dad Soomaali ah ahamiyadda ay nabadda u leedahay caalamka iyo horumarka iyo wanaaga iyo wada noolaanshaha taas ma nagu badna jahli weyn baa dhinaca naga haysta qodobka labaad waxa weeye dadka Soomaalida ah ma ahan dad adduunka soo liidgareeya ama adduunka soo hogaamiya ama ilbaxnimo hore leh ma ahan ummadaha waxa loo qaybiyaa ummado hormarsan oo adduunka xilliyada kamid ah hogaanka soo hayay ama boqortooyooyin hore lahaa ama awood ahaan jiray oo adduunka soo maamulay sida dowladahan ama Hindiya ama Turkiga ama Iran ama Jabaanka ama Ingiriiska wadamadaas oo kaleeto waa wadamo adduunka ku leh ma aragtay asbaqiyo hore ku leh si walba u baaba'aan ama ay isku diriraan inay soo kabsadaan aad bay u fududa way dhowda laana mujtamacaas wuxuu yahay mujtamac ilbax ay ku jirto jiinaadkiisa iyo dhiigiisa uu ku jiro horumar iyo inuu adduunka ma aragtay hogaamiyo waxa la mid ah dowladan Turkiga oo kale ilaa 1000 sano meelahaas waxay caasimad u ahayd Istanbul imbaraatoriyadii Roomaanka markii dambe islaamka uu gaarayna 600 sano bay caalamka muslimiinta waxay u haysay caasimada Istanbul u ahaan jirtay marka wadan waxa weeye Yurubtii horena caasimad u ahaa islaamka markuu yimidna caasimad 600 sano u ahaa lafaha waxa kaga jira horumarka iyo qiyaadada iyo nabadda iyo shacabkooda u diyaarsan hadda 100 sano la soo dhaafay way soo kabsadeen haddana waxay ku jiraan 10 dawladood adduunka ugu dhaqaalaha badan ugu awooda badan ugu horumarka badan haddana waxay isku diyaarinaysaa inay caalamul islaami u ahaato hogaan laana mujtamacaas wuxuu yahay mujtamac ilbaxnimo hore leh wuxuu tiigsanayaa awood hore oo ma aragtay uu lahaan jiray Soomaalidu sidaas oo kale ma ahan walidaalka haday isdirraan ama ay dagaal dhaxeeyo sokoyo uu ka dhaxdhaco waxa adkaanaysa inay ka soo kabsadaan waxa adkaanaysa inay sidoo hore ku soo noqdaan waayo muqawimaadkii bulshada iyo mujtamaca ba ku yar qodobka saddexaad walaalayaal aan ku soo koobayo waxa weeye mafhuumka khaldan oo aan ka qaadanay siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam ama sida khaldan oo aan isku barno siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam siiradii suubanaha waxa lagu soo koobay jaanibka askariga ah ama dhinaca militariga ah taas caalamul islaamka badankood waa kala midnahay markaan siirada baranayna waxaan ka baranaa dugsiyadeena waa arkaysaa masaajidada waa arkaysaa waxaan ka baranay oo kaliya dagaalkii Badr dagaalkii Uhud dagaalkii Ahzaab dagaalkii maaragtay fatxu Makka dagaalkii Hunayn dagaalkii Tabuuk adigu tiri 10 sano nabiga sallallahu alayhi wasallam Madiina uu noolaa oo dawladda uu aasaasay oo cilaaqaad badan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay xiriir caalami uu sameeyay diblomaasiyad uu sameeyay waxaan ka baranaa oo kaliya waan kala baxnaa oo kaliya dhinaca militariga ah marka waa mujtamac kulligiis la rabo in laga dhigo military mujtamac marka kulligiis wada ciidan ma ahan oo military ma ahan oo police ma wada ahan mujtamacan waa mujtamac kala duwan oo thaqaafo u baahan oo inuu noolaado u baahan haddii marka siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam aan ka soo qaadanay oo kaliya dagaalada masaajidada lagu akhristo oo iskuulaadka lagu akhristo oo dugsiyada lagu akhristo oo kutubta jaanibka militariga kaliya focuska saaraya mujtamacina la keeno waa mujtamac marka looga dalinayo inuu noqdo kulligiis wada military ama mujtamac cunfiga uu ku badan yahay dagaalka uu ku badan yahay arinta noocaas arin qurux badan ma ahan siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam waa siira ballaaran oo qurux badan waxa laga baran karaa dhinaca dhaqaalaha dhinaca deegaaminta dhinaca bicisaadkii nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii uu diray caalamka uu wada diray oo dadka dacwada gaarsiinayay oo dadka maarad u soo tabshiirinayay waxa laga baran karaa cilaaqaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la lahaa mujtamacaadka dariska ah cilaaqaadka uu la lahaa boqortooyada Ethiopia boqortooyinkii maarad Masar ka talinayay cilaaqaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la lahaa qabaa'ishii deganaa Madiina iyo agagaarkeeda oo aan muslimiinta ahayn waxaad arkaysaa kutubta caalam islaamka laga qoray oo muhiimka ah sida kitaabka la yiraahdo at-taratib al-idariyya nabiga sallallahu alayhi wasallam yusuf maamuli jiray kitaabka la yiraahdo ash-shifa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo taariikhdiisa baraya
ama kutubta kale oo fiqhi siiraha iyo siira nabawi ka sheekeynaya mujtamaceena ma gaaro. si marka mujtamaceena aan nabadda walaalayaal ugu soo celino oo aan nabad ugu soo dabaalno, waxaan u baahannahay inaan wada midowno, aan ka wada shaqeyno haddaan nahay dowladdii, haddaanu nahay culimmadii, haddaanu nahay dadka aqoon-yahanka ahaa, mujtamacii rag iyo dumarba, sida dowladda Soomaaliya loogu soo celin lahaa nabad, sida loogu soo dabaali lahaa nabad. hal qof kaliya kama shaqeyn karo. dowladdu marka waa inay brograami mashaariic u diyaarisaa, culimmada casharada iyo masaajidada ka bixinayaan iyo khitaabkooda dacawiga inuu ahaado khitaab naxariis iyo nabad iyo cadaalad iyo salaam ka shaqeeya. iskuulaadka waa inaan curriculumkeena iyo manaahijteena u tawdiifinaa, u diyaarinaa sida loo faafin lahaa thaqaafada nabadda. miidiyaha iyo social mediaha iyo baraha bulshada inay ku badato nabadda iyo maaragtay nashriga thaqaafada nabadeynta, si mujtamaca uu noqdo mujtamac u diyaarsan. Allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku ammaanay in ummadihii hore ay ahaan jireen ummado ay dad ahlul caqli ah iyo ahlul xikma ah ay lahaan jireen, ka badbaadiya dhibaatooyinka iyo dagaalada iyo baaba dhexdooda dhex dhaca. Allah waatuu lahaa falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatan yanhawna can alfasaadi fi lard. yacni mujtamac kastoo meel degan waa inuu leeyahay dad asxaabul caqli ah, waa inuu leeyahay dad xikmad u saaxiib ah, dad wanaagga dadka u fara, nabadda kala hadla, dhibka iyo dhibaatada iyo fasahaadka iyo dhiigga la daadinayana ka maaragtay waaniya oo kala dagaalama. dadka noocaas haddaan mujtamacaadka laga dhexelin, ummaduhu way baaba'aan, wayna maaragtay halaagsamaan, ama ilaah baa subxaanahu wa tacaala halaag caadiya oo kulligood wada camima usoo dira, ama dhexdoodu ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu u qeybiyaa shiyacan iyo dad ayaga dhexdooda isbaabi'iya. alle wuxuu leeyahy wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluha muslixuun. alle subxaanahu wa tacaala ummadaha iyo magaalooyinka ma baabi'iyo mana halaago haddii dadkooda ay ku dhex jiraan dad muslixiin oo wax hagaajinaya. haddaan marka mujtamaca soomaalida ah aan laga dhexelin dad ahlul caqli ah, ahlul xalli walcaqdi ah, ahlul xikma ah, dadka wanaag kala shaqeeya, nabadoonna ah, nabadda faafiya, culimo ha ahaadaan, siyaasiyiin ha ahaadaan, salaatiin ha ahaadaan, runtii mujtamacaas waa loo baqaa inuu dabargo'o ama uu baaba'o. waxaan ku talinayaa marka mujtamaca Soomaaliyeed 30 sano uu soo dagaalamayay, dhexdiisa isa soo baabi'iyey, isagoo aan wax diina isku haysan, wax dhaqaalaha isku haysanin, wax maaragtay masaalix kale weyn isku haysanin, just dhexdoodii maaragtay ay is-indha buuxin waayeen. waxaan u baahanaa marka inay intaas ku filan tahay dadka Soomaalida inay dagaalamaan hadda iyo mustaqbalka soo socda. aan ka wada shaqeyn haddaan nahay dowlad iyo culumo iyo odayaal iyo salaatiinba, inaan mujtamacan qulubtooda isku soo jeedino, allana subxaanahu wa tacaala aan barino inuu dadka Soomaalida ka dhigo dad nabadda ka shaqeeya, ayaga dhexdooda nabad ku wada nool. wa ilaa liqaa'in aakhar, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.